بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ah Ustaad Cabdullaahi Cismaan Maalin waxaan idin soo jeedinayaa oon rabaa meeshan inaan ku soo gudbiyo imtixaanka ugu dambeeyay ee wasaaradda waxbarashada ay qaaday oo maadada juqraafiga sanadkan ugu dambeeyay ardayda ay galeen in imtixaankii ka shaqeeyo maadaama arday badan oo ku xiran page-kayga ay soo weydiiyeen inaan ka shaqeeyo kii kan ka horeeyana soo ka shaqeysano page-kayga ku jira hadda dib u raacdo waa helaysaa imtixaanka ugu dambeeyay hadda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay qaaday wuxuu ka koobnaa maadada juqraafiga wuxuu ku qornaa 3 luqadood qaybtan oo geeska oo luqadda Soomaaliga ah qaybtan oo luqadda Ingiriiska ah iyo qaybtan luqadda Carabiga ah maadaama buugga juqraafiga 3 qaybood 3 luqad lagu soo saaray iskuulada qaar ay ku dhigaan luqadda Soomaaliga ah iskuulada qaarna ay ku dhigaan luqadda Ingiriiska iskuulada qaarna ay ku dhigaan luqadda Carabiga ah marka aniga waxaan diiradda saarayaa maadaama codsiga ardada aan fiirinayo luqadda Ingiriiska ayaan ka shaqeynayaa insha Allah qaybta luqadda Ingiriiska ayaan ka shaqeynayaa ila soo insha Allah maadada juqraafiga wuxuu ka koobnaa 2 qaybood qayb goobageli ah iyo qayb su'aalo toos ah labada qaybood baan ka shaqeyn doonaa insha Allah waxaan ka bilaabayaa qaybta hore ee luqadda Ingiriiska ah su'aasha koowaad haddii aan fiirino waxaa lagu dhahay the branch of geology laanta geology-ga that concerns taasoo qusayda the study of soil laanta geology-ga ee ka hadasha barashada carrada in carrada la barto waxaa loo yaqaanaa qaybtaas geology-gana waa cilmi ama aqoon la xiriirta barashada ama dhaqdhaqaaqa isbedelada iyo ku dhaca maxaa la yiraahdaa dhulka iyo ilaha tamarta ee dhulka ku jira sida macdantii iyo dhagaxaantii waxyaabaha la midka ayuu daraaseeyaa cilmigani waana chapter koowaad ee buugga form 4ka ku qoran marka qaybta ka hadasha carrada ee geology-ga waxaa loo yaqaanaa engineering geology geologiyada handasaha miyaa la yiraahdaa ama engineering ma loo yaqaanaa petroleum geology-ga maxaa la yiraahdaa saliidda ama shidaalka miyaa environmental geology-ga deegaanka miyaa ama bee'ada iyo economic geology-ga dhaqaalaha miyaa qaybta geology-ga ee ka hadasha maxaa la yiraahdaa carrada ka hadasha oo diiradda saarta waxaa loo yaqaanaa environmental geology ama geology-ga deegaanka ama bee'ada ayaa loo yaqaanaa marka su'aasha koowaad waxay noqonaysaa environmental geology-ga bee'ada ama deegaanka ayay noqonaysaa su'aasha koowaad saas loogu shaqeynaya okay su'aasha labaad ee goobgelida waxaa lagu yiri the soil carrada that found taasoo laga helo in the deltas of Juba and Shabeelle Scotland meelaha ku soo faafo webiga ama daltooyinka webiga Juba iyo Shabeelle carrada laga helo waxaa loo yaqaanaa carradaas nooceewa sedimentary lime and sand soil mi carra lakabeed miya lime soil carra nuuriyadeed miya volcanic soil carra volcana miya black clay soil carra dhoobey maxaa la yiraahdaa madow miya carrada laga helo webiga Shabeelle iyo Juba daltigood waxaa loo yaqaanaa black clay soil carra dhoobey oo maxaa waaye madow waaye sida ku qoran buugga geographiga ee fasalka form 1ka ande form 4ka chapter koowaad ayaan ka wada marka su'aasha labaadna sidaas looga shaqeynayaa goobgelida oo waxay noqonaysaa jawaab saxda ah carrada laga helo deltas webiga Shabeelle Juba waxaa loo yaqaanaa black clay soil ayaa loo yaqaanaa iska ilaali su'aalahan inaad si fiican diiradda u saarta ayaa laga rabaa maadaama imtixaanka kale hadda aad gelaysid kii hore maxaa la yiraahdaa inaad si fiican u baarto isku day ardayo okay the zone goobta in which all organisms live on the earth meesha dhulka igu nool yihiin noolayaasha dhan waxaa loo yaqaanaa atmosphere gibil miya ama hawada miya hydrosphere laka biyoodka miya ama gibilka biyaha miya biosphere gibil nololeyda miya iyo lithosphere oogada dhulka miya meesha ay noolaha ku nool yihiin biosphere ayaa loo yaqaanaa ama nololeyda ayaa la yiraahdaa goobta noolayaasha ay ku nool yihiin waxaa la yiraahdaa biosphere bio means life sphere means layer life layer ayaa la yiraahdaa marka waxaan loo yaqaanaa biosphere marka jawaab saxda waxay noqonaysaa biosphere ayaa looga jawaabayaa su'aasha saddexaad okay su'aasha afraad waxaa lagu yiri seasonal tropical forests keyma kulaalayaasha xilliyeedka ranged waxay ku jiraan second largest forest keenta labaad ee ugu weyn waaye after waxaana ka horeeya kaliya equatorial forest keenta kulaaleyda ma ka horeeyda temperate forest keymaha ka baxa dhulka cimilada dhexdhexaadka temperate cimilada dhexdhexaad ka baxa miya cool forest cimilada keymaha ka baxa cimilada qabowga miya iyo coniferous forest iyo cimilada ka maxaa la yiraahdaa keymaha ka baxa keymaha dunta maxaa la yiraahdaa ay leedahay caleentoodu qodqodxaha ay leedahay miya marka keenta kaalinta koowaad ku jirta sida buugga form 4ka waa ku soo aragteen oo keenta ugu weyn waxaa loo yaqaanaa equatorial forest ama keymaha kulaalayaasha la yiraahdaa
laban waxaa ku xiga seasonal forest keymaha xiliyeedka ku xiga marka waxaa ka horeeya keliya seasonal forest oo jawaabta saxda ay noqonaysaa equatorial forest ayay noqonaysaa. Okay, the density of plant life in Somalia dhirta ugu badan maxaa la yirahdaa dhirta ugu badan Soomaaliya waxaa laga helaa is high in the waxay ku badan tahay middle regions gobolada dhexmiya, northern regions gobolada waqooyi miya, eastern regions gobolada bari miya iyo southern regions gobolada koonfureed miya. dhirta Soomaaliya waxay ku badan tahay markii la fiirinayo oo Soomaaliya maxaa la yiraahdaa density-ga dhirta ku badan tahay sida ma inkastoo hadda xaalufin iyo waxyaabahaas ay ka dhaceen laakiin sida uu noo tilmaamay buuga ama maxaa la yiraahdaa waayii horeba southern regions waaye meelaha dhirta ee Soomaaliya density ay ku badan tahay waa gobolada koonfureed ee Soomaaliya inkastoo hadda maalmahan ay ku dhacday desertification xaalufin ay ku dhacday. Okay, su'aasha lixaad aan fiirina marka the causes of air pollution waxyaabaha sababa wasaqowga hawada ama dhiiqowga hawada waa included waxay isugu jiraan wasaqowga hawada waxaa keena deforestation xaalufinta dhirta miyaa keenta, genetic modification isbedel lagu sameeyo maxaa la yiraahdaa hidisidaha dhirta miyaa keena, emission of carbon monoxide from cars baabuurta carbon monoxide baabuurta ay sii deeyaan miyaa keena wasaqowga hawada, ama water pollution wasaqeynta biyaha la wasaqeeyo ama dhiiqowga biyaha la wasaqeeyo miyaa keena. marka jawaab saxda waxay noqonaysaa air pollution wasaqeynta hawada waxaa keena emission of carbon monoxide from cars baabuurta ay sii deeyaan carbon monoxide ay sii deeyaan. Okay, su'aasha toddobaad haddii aan u gudagalno waxay noqonaysaa chemical method habka chemical to prevent kaasoo looga hortagi karo desertification xaalufinta waa a petroleum products waxyaabaha shidaalka ama saliidda laga helo of stick stray waxyaabaha maxaa la yiraahdaa saliidda laga helo shidaalka laga soo baxsho qolqolfaha ay apply to the surface in loo adeegsado carrada lagu daadiyo miya, filtration barriers in la sameeyo miya maxaa la yiraahdaa dhir in la wareejiyo miya, concrete barriers in la sameeyo teed waxyaabo wareegsan oo dabayshi looga hortagaya in la sameeyo miya, propagating environmental awareness in la faafiyo wacyigelin deegaanka dadka la wargay. marka waxyaabaha chemicalka ee lagu hortagi karo desertification waxa waaye in maxaa la yiraahdaa waxyaabaha laga dhambalo shidaalka oo lagu daadiyo meelaha daafaha maxaa la yiraahdaa ayaa loo yaqaan. Okay, su'aasha sideedaad waxay noqonaysaa environmental problems dhibaatooyinka deegaanka ee Soomaaliya ka jira waa agricultural exploitation in laga faa'iideysto beeraha miya, cutting trees phenomenon in dhirta la jaro miya, iyo protection of areas which are risky of floods ama in la ilaaliyo meelaha khatarta ku ah daadadka in laga hortago miya ama la ilaaliyo. marka dhibaatada weyn ee ugu weyn ee Soomaaliya deegaanka ka jirto waxa waaye cutting trees phenomenon dhirta la jarayo waaye jawaab saxda marka waxay noqonaysaa cutting trees phenomenon ayay noqonaysaa. Okay, su'aasha soo socota ee sagaalaad waxaa waaye which of the following countries is landlocked wadamadan soo socda keebaan bad lahayn bariga Africa markii laga hadlayo hadda waxaa noo qoran Soomaaliya, Suudaan, Uganda iyo Masar noo qoran. qaaradda Africa oo dhan waa qaaradda ugu wadamada badan ee bad lahayn waxaa ku taala 16 wadan ku taala qaaradda Africa. bariga Africa markii laga hadlayo waxaa ku taala 5 wadan oo ah maxalliga koonfurta Suudaan, Ethiopia, Uganda, Rwanda iyo Burundi. shantaas wadan ku taala bariga Africa oo aan bad lahayn. marka jawaabta saxda ah ee hadda wadamadan aan bad lahayn keebaan bad lahayn waa Uganda oo kaliya ayaan bad lahayn. marka jawaab saxda waxay noqonaysaa Uganda ayay noqonaysaa. Okay, the plateau zone in Somalia meelaha dulaha meesha waxa la dhulka waxa kor u kacsan plateau loo yaqaan dulaha la yiraahdo oo qaybta sarana ka siman. Prevails in the region waxa laga helaa dhulka loo yaqaan waxa laga helaa waqooyiga Soomaaliya ma laga helaa aaga koonfureed ma laga helaa aaga bari ma laga helaa aaga dhexe ma laga helaa. marka meelaha dulaha ah waxa laga helaa Soomaaliya qaybaha waqooyi ee Soomaaliya dhulka waqooyi koonfurtu waa plain dhul siman waaye. Okay, su'aasha kale lagu weydiiyay waxay tahay the region that has higher population density in Somalia meelaha dadka badan gobolka ugu dadka badan meelaha ugu dadka badan Soomaaliya waa ugu cufnaanta badan population density. Eastern region gobolada bari miya, northern region gobolada waqooyi miya, southern region gobolada koonfureed miya iyo western region gobolada maxaa la yiraahdaa loo yaqaano galbeedka miya. marka meelaha ugu tirada badan dadka waxa la sheegay wabiyada agtooda iyo inay yihiin maxaa la yiraahdaa meelaha xeebaha agtooda. marka Soomaaliya meelaha ugu dadka population ugu cufnaanta badan waxa la yiraahdaa waa southern regions gobolada koonfureed. The land transport in Somalia is gaadiidka dhulka Soomaaliya adeegsadaan waa boats doomo miya, cars baawur miya,
airplanes diyaarada miya, railways wada traina miya adeegsadaan. marka Soomaaliya land transportiga adeegsadaan waa cars, baabuurta ayaa loo yaqaana. okay haddii aan su-aasha 13aad aadna waxay noqonaysaa ilaa 20 su-aal oo gobogeliya waaye iyo 10 maxaa la yiraahdaa direct ah. natural factories waxyaabaha qodobada dabiiciga ah affecting the distribution of population ee saameeya filaqsanaanta ama baahsanaanta dadka. waxyaabaha dabiiciga ee saameeya filaqsanaanta dadka waa birth rate xaddiga dhalashada miya, death rate xaddiga dhimashada miya, mortality waa la yiraahdaa, immigration hajiritaanka miya, iyo mineral resource waxyaabaha dadku inay meel ku bataan meel ku yaraadaan buga Kenya maxaa la yiraahdaa dadku inay meel ku bataan meel ku yaraadaan factorieska naturalka Kenya waxa kamid ah mineral resource meelaha macdanta ka helaan dadku way isugu tagayaan way ku badanayaan. buugana way ku taalaa waxa ku yaala buuga maxaa la yiraahdaa markii cashirka aad arkayso waxa ku yaala natural factories waxyaabo dabiici ah iyo human factories waxyaabo aadanaha la xiriira ee dadka sabab inay meel ku bataan meelna ku yaraadaan sida cashirada waa ku soo qaadateen aan rajeynayo buuga inaad hor u dhameyseen. urban problem in the following is kuwan soo socda keeba ah dhibaatooyinka deegaanka magaalada ka dhaca. complex census method hab tirkoob dhameystiran miya, political problems dhibaatooyin siyaasad miya ka dhaca, lack of efficient method inaysan hab ku filan to dispose of waste material waxyaabaha wasaqda meelay ku tuuraan oo ku filan ma haystaan, waaris dagaalo ayaa ka dhaca. marka magaalada dhibaatada ugu weyn oo haysata sida cashiro ku soo aragteen waxaa ku yar maxaa la yiraahdaa dispose of waste wasaqda meelaha ay ku ridayaan ayaa ku yar. the most important industrial regions in the world meelaha ugu muhiimsan ee warshaduhu ku badan yihiin waa East Africa bariga Africa miya, North Asia waqooyiga Asia miya, East Europe bariga Europe miya, iyo East of North America waqooyiga andhehe barta maxaa la yiraahdaa East bariga North America waqooyiga America barigeeda miya. jawaab saxdaana sida buuga ku soo aragtaba meelaha ugu warshadaha badan ee adduunyada la sheegay waxa waaye bariga waqooyiga America. okay tourism that's intended dalxiiska ujeedkiisu yahay for necessity laga maarmaan not for entertainment ama madadaalo ahayn oo qasab qofka ku ah. maxaa waaye cultural tourism dalxiiska dhaqanka miya, ethnic tourism dalxiiska jinsi ahaan oo maxalli qowmiyad ahaan loo baxay miya, medical tourism dalxiiska la xiriira caafimaadka miya, iyo religion tourism iyo dalxiiska la xiriira maxaa la yiraahdaa diinta miya. marka midka qasabka sidaan ku soo aragnay oo maxaa la yiraahdaa qofka uu maxaa la yiraahdaa asagoo madadaalo iyo waxaas aan u socon oo baahi ay u geyso waxaa loo yaqaanaa medical tourism dalxiiska dhanka qofka jiro asagoo u baxayo magaaladiisa tagaya meel ka baxsan wadankiisa u raadsanaya caafimaad. okay the line that define the area land over which the country exercise its sovereignty is called meesha ama xariiqaha wadanka ama goobta oo wadan ku sameeynaya ama ku hirgelinayo madax banaanidiisa inta wadanka u maamulo waxaa loo yaqaanaa geographic phenomenon habka dhulka juqraafiyeed muuqaalka juqraafiyada dhulka leeyahay, political boundaries xaduudaha siyaasadda wadankaas leeyahay, spatial xeyndaabka dowlad miya ama framework ama joogeynta miya. marka meelaha wadanka uu haysto waa political boundaries xaduudaha siyaasadeed uu leeyahay wadankaas ayuu sovereignty-giisa ku hirgeli karaa. okay Soomaaliya iyo Ethiopia xaduudda u dhaxeeya waa nooc kamid ah regional xaduud goboleed miya, neutral xaduud dhexdhexaad miya, geometric xaduud oo la hindisay oo la sameeyay miya, iyo local xaduud gudaha miya. Soomaaliya Ethiopia xaduud u dhaxeeya waxa loo yaqaanaa geometric la yiraahdaa waa mid la hindisay ama la sameeyay. okay Kashmir is located between Kashmir wuxuu u dhaxeeya Pakistan iyo Hindi ma u dhaxeeya, Bangladesh ma u dhaxeeya, Turkmenistan iyo Azerbaijan ma u dhaxeeya. Kashmir wuxuu u dhaxeeya Hindi iyo Pakistan ayuu u dhaxeeya. okay su'aasha climate change isbedelka cimilada waxaa loo aqoonsaday inuu yahay another environmental concern waxyaabo kale oo deegaanka quseeya which has emerged kaasoo soo ifbaxay during intii lagu guuri jiray ancient age xilliyadii hore miya, middle age xilliyada dhexe miya, modern age xilliyada casriga miya, iyo geological age xilliyada geologiyada moo soo baxay. marka climate change-ga waxuu soo baxay modern age xilliyada casriga ayuu soo baxay oo aad looga dooday. halkaas waxaa ku ekaaday su-aalihii goobageliga ahaa ee 20 xabo. halkan waxaa noo yaalo qaybta labaad oo su'aalo 10 xabo ayaa meesha noo taala. su-aasha koowaad waxaa loo yiri mention waxaa sheegtaa two biospheres characteristics gibilka nololeyda laba sifo lagu yaqaan sheeg. su-aalahan waxaan soo gelinayaa qaybta commentiga jawaabahooda soo gelinaya aan soo qoray hadda laakiin waa fasiraya waa ku aqrinaya. su-aasha labaad waxaa loo yiri classify waxaa kala saartaa types of natural plants in the world noocyada loo qaybay dhirta dabiiciga adduunyada sheeg. soo kale waxaa loo yiri latitude loolku is more important than wuxuu ka muhiimsan yahay longitude dhigta ayuu ka muhiimsan yahay. why sababtu maxaa waaye
Okay, physical features of Somalia. muuqaal duleedyada Soomaaliya can be generally divided into 3 types. waxaa loo qaybi karaa saddex qaybood oo waaweyn. mention 3 saddex nooc sheeg. muuqaalada Soomaaliya waa arki doonaa dhul maxaa la yiraahdaa plateau, highland, plain. saasay noqon doonaan dhulka Soomaaliya. jawaabaha ku soo gelinaya qaybta commentiga. Right 3 human factors waxaa sheegtaa saddex qodob oo aadanaha la xiriira affecting kuwaas oo saameeya the distribution of population filaqsanaan dadka waxyaabaha saameeya saddex qodob oo saameeya sheeg. Okay, differentiate waxaa kala saartaa the renewable and non-renewable energy tamarta gurta iyo tamarta maaxda ama mid la cusboonaysiin karo iyo mid aan la cusboonaysiin karna kala saaraysa laba definition ay leeyihiin qaybta hoose comment ayaan ku soo dhigaya jawaabaha insha Allah. Okay, propose solution can xal u keen for the urban problem dhibaatooyinka maxaa la yiraahdaa magaalooyinka xal u keen. Okay, su'aasha saddexaad waxaa lagu yiri list stages waxaa sheegtaa hababka ama xeerarka loo maro designing political boundaries xadud siyaasadeed markii la nashqadeynayo waxaa sheegtaa la qorsheynayo hababka la maro ama stages marxaladaha la maro. How did Somalia deal with sidee Soomaaliya ula macaamishay solving the problem of these territories occupied by these neighbors. Soomaaliya sidee ula macaamishay markay xal u keenaysa ama dhibaatooyinka xaduudeed wadamada dariska la dhaxeeya. waagi maxamed siyaad bar markooda maxaa galay saddex haba oo la dhaqmo arki doona diplomatic iyo maxaa la yiraahdaa iyo dagaalo iyo maxaa la yiraahdaa waa ku soo qoriya qaybta commentiga hoose. su'aasha ugu dambeeyay waxaa la yiraahdaa energy qeex. Write the concept waxaad qortaa aragtiyada energy maxaa laga wadaa. Okay, su'aalihii imtixaanka ugu dambeeyay wasaaradda waxbarashada qaaday sidaas ayuu noo noqonaya insha Allah. anigoo ustaad maalin halkaan idinkaga soo jeedinay jawaabahan qaybta hoose comment idinka soo dhigaya insha Allah. gaarsiiya asxaabtaada kale si ardayda ugu faa'iideystaan. dhammaan ardayda Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa guul insha Allah. Ilaahay ha ka dhigo kuwa wadankooda dalkooda iyo diintoodaba wax u qabto insha Allah. ardaygu lama rabo kaliya inuu imtixaan kaliya ka fikire waxaa la rabaa inuu noloshiisa iyo mustaqbalkiisa uu hagaajiyo. gaarsiiya asxaabta kale insha Allah. imtixaan ka horeeyana beeshkeedu ku jira horaan u soo dhigay. waa mahadsantiin.